assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu. kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal, kusoo dhowaada muuqaal cusub. Caawa waxaan qaadanaynaa xarfaha loo soo gaabiyey abbreviation word oo ah cashirkeenii noo sii socday pharmacology-ga qaybtii buugga oo ugu dambeysay. Abbreviation word-ka aan qaadanayno waxaa loo kala qaadayaa laba nooc oo ah intradermal iyo ointment. Intaas markaa u kala qaadno, waxaan dib ugu noqonaynaa shirkadaha pharmacology-ga ee aad loo soo gaabiyey abbreviation word-kooda, kuwa ugu caansan ee wadamada sameeyo abbreviation word-kooda. Qaybta daawada, IBA waa daawooyinka la sameeyo. IB waxaa loo yaqaanaa Indian Pharmacopoeia. BB waxaa loo yaqaanaa British Pharmacopoeia. USB United States Pharmacopoeia. BOT oo loo yaqaano potassium, iyo ereygan kale oo micnihiisa aad dadka aysan u garanaynin balse hadda inay fahmaan muhiim u tahay, oo loo yaqaano OD oo loola jeedo once daily. ID qaybtan markaa u gudubno oo column-ka iyo row-ga markaa u gudubno, waxaan sameyneynaa ID intradermal. Ointment oo ointment G oo loo yaqaano xarafka gram. AB oo loo yaqaano xarafka action potential. HR oo loo yaqaano hour oo loo soo gaabiyey abbreviation word-kooda hour waa. Cap waa ereyga markuu yahay kaniini oo cap la dhahayo waa capsule, sida mokshilinka u taqaanin kaasoo kale waa capsule waa. CH oo loo soo gaabiyo child dose, asigana abbreviation-kan kale waxaa loo soo gaabiyaa BSA oo loo yaqaano body surface area. AU oo loo soo gaabiyey international unit. Midda kaleetan waxaa loo soo gaabiyaa CM oo ayadana loo yaqaano centimeter. NG ama ING aa la dhihi karaa, ING oo loo yaqaano injection. Sod haddana loo yaqaano sodium. IM haddaa maqashane waa intramuscular, waa muruqa cirbada laga surayo. Tii horena aan ku laabano oo la dhahayay ING oo loo yaqaano injection. Waxaan waa cirbad camal waaye, cirbad camal waa injection, cirbad waaye. IM haddaa maqashane waa intramuscular waa. Suspension waxaa haddaa maqasho waa wax oral camal waaye, ama goojo afka laga siinayo, ma fahanti? Ama drop kaleeto usoo gaabo, drop oral suspension haddaa u maqasho. Suspension haddaa maqasho waa wax afka laga qaadana ama goojo ahaato. IV haddaa maqashina waa xididka mid laga siinayo, la dhahayo intravenous IV la dhahaa. SYR haddaa maqashina waa syrup. Dhakhaatiirtu waxay soo gaabiyaan SYR oo loo yaqaano syrup. Syrup macnihiisa hadii lasii fiiriyo waxaa waaye waa sharoobo camal waaye. KG hadii la dhaho waa kilogram waaye, kilogram oo miisaanka lagu cabiro. Tablet haddaa maqashina tab waa tablet waaye. L haddaa maqashina waa liter. TDS waxaa looga soo gaabiyey asigane 3 times a day waa, 3 times a day. Lick haddaa maqashina waa liquid. U haddaa maqasho waa unit, wax ugu yar. Tusaalaha kaleeto U haddaa maqasho waa unit. Haddii lagu dhaho 1 unit qofkan uu dhiig ha loo shubo, haddaa maqasho 1 unitkiisa wuxuu la mid yahay 500 oo unit camal oo la mid yahay, ama 500 oo dhiig laga shubo qofkaas oo unit waa 1 unit waa. M haddaa maqashona waa meter. UV haddaa maqashona waa ultraviolet waa. Maxi haddaa maqashona waa maximum, yacni waxa ugu badan qofka oo isticmaalaya waa maximum. Maximum haddaa maqasho waxaa saas camal waa, waxaa lid ku minimum. Min allah hadana minimum waa. Year haddaa maqasho YR waa yearly waa ayadane. MG haddaa maqashona waa milligram waa. AB ampule waa. Ampule haddaa maqashona waa cirbada oo injectionka meesha ku dhex jirto ama dhalada laga soo jiidayo. Tusaalo kale, cirbada markii lagu qasayo biyaha waxaa ku jirto cirbad yar oo ku qoran tahay, tusaalo kaleeto artimeterka kale, midda saliidda, cirbad saliid oo kaleeto waa ampule waa. Yacni waa dhalo oo la jebinayo kadib daawada ku jirta laga isticmaalayo, ampule la. ML haddaa maqashona waa milliliter waa, milliliter.
MW haddaan maqashana waa molecular weight, waxyaaba miisaamka lagu cabiro molecular weight-ka la dhahaa. Halkan ayaa kusoo koobayna cashirkeena, wabilaahi towfiiq, is aragti dambe oo xiise leh. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waxaa kaloo jiri doonto in aan sii wadno cashiro kaleeto oo qaybaha caafimaadka ka hadlayo, ay daawooyinkii iyo cuduradii caadiga iyo waxyaabihii herbalka inaan usii gudubno insha allahu tacaala. saad umahadsantihiin. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu.